waxaba loo xiiso waxa weeye dadku ay aad u hadalhayaan dawladii farmaajo markay arkaan ficilada hadda wasiiradu ay sameynayaan waa awoodaan waxa ku kala saarayaan qabiil bal ilaahan kugu dhaariye beesha jareerweynaha wadanka xaq uga leh raxaweynaha xaq uga leh hawiyaha kale intiisa kale yaa xaq uga leh dadkaas dad adiga kugu dirayo weeye shacabka madaxweyne Soomaaliya fiidiyogan hala share gareeyo Xasan Sheekhna hala gaarsiiyo dadkii Soomaaliyeed ayay kala faquuqayaan waxa sidaas sameynayaan waa wasiirka caafimaadka Soomaaliya oo rag saaxiibadiisa wasiirra ku qortay ilaahan idinku dhaarshay u qoray qaraabadoodii way awoodaan dadkaasna waxa kamid dadka loo qoray qaraabadooda ee wadanka dibadiisa caafimaadka loogu qaaday ehladooda wasiiradan kala ah wasiirka qorsheynta Soomaaliya beene waxa loo qaadaya mahad karow iyo mid kale oo sargaal ah waxa una dhashay beesha baadicade wasiirka arrimaha gudaha Ahmed Macalin Fiqi oo nin habar gidir oo beesha saacad u dhashay waxa loo qaadaya walaashiis la dhalatay oo iyana markaas qarax ku dhaawacantay wiilka Cabdilaahi Cali Jaamac la yiraahdo isna lugihii iyo xanihii meel walba go'ay